وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع المجيب الدعوات. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa biidni rabbi alcaalamiin 7 xikmadood oo noloshaada wax ka bedelaya haddii aad samayso biidni rabbi alcaalamiin. Xikmadda koowaad, erayadu ama hadalku way awood badan yihiin. U isticmaal si xikmadaysan hadalka aad kula hadlayso dadka intuusan afkaaga kasoo bixin. Ka feker, ma hadal wax dhaawici karaa mise waa hadal waxtar leh? Maadaama uu hadalku awood leeyahay, mar walba isku day dhinaca wanaagsan inaad u isticmaashid. Xikmadda labaad, noloshaadu dad way imaanayaan oo way soo gelayaan, siday doonaan ha ku soo galaane, waayo qof bini'aadan ayaa tahay. Dadna way ka tegayaan, laakiin waxaad mar walba niyadaada iyo qalbigaaga ku haysaa kuwa saxda ah way kula joogayaan, ee marna ha israacraacinin kuwii noloshaada ka baxay oo ka tegay. Xikmadda saddexaad, samee wax walba sida ugu wanaagsan. Wax walba aad samaynaysid, haddii aad wax baranaysid, haddii aad shaqaynaysid, haddii aad qof caawinaysid, haddii aad wax walba oo noloshaada aad samaynaysid u samee sida ugu wanaagsan. Xitaa waxaas aad samaynaysid yuusan ahaanin noloshaada waxaad jeceshahay. Waddadaas wanaagsan ee aad ku samaynaysid ayaa kuu gudbin doonta waxaad jeceshahay biidni rabbi alcaalamiin. Xikmadda afaraad, guuldarro waa markii aadan isku dayin. Waxaad rabtaa noloshaada inaad samaysatid. Waxaad rabtaa inaad isbeddel noloshaada kusoo kordhisid. Intaad isku dayaysid, intaad kacaysid, intaad samaysanaysid, marna ma aadan guuldarraysanin. Laakiin markaad guuldarrada rasmiga ah aad la kulantid, waa markaad isdhiibtid, aad tiraahdid aniga waxaan ma samayn karo ee waxaan u baahanahay caawinaad. Waxaa xaqiiq rasmi ah inaad markaas guuldarro rasmi ah aad gacanta ku dhigtay. Laakiin haddii aad ficilka samaynaysid, iskuulka aad tagtay, waxbarashadii aad raadinaysid, shaqadii aad raadinaysid, waxaad rabtid aad u dadaalaysid oo aad u shaqaynaysid, markaas waxaad ogaataa inaadan markaas guuldarraysan, laakiin aad waddadii saxda ahayd ee aad guusha ku gaari lahayd aad ku socotid. Waayo ilmaha yarka markuu socodka baranayo iskuma dayo hal mar intuu istaago inuu boodo. Waan wada naqaanaa qaabka ilmaha yarkaa socodka u bilaabo, halkuu ka bilaabo, inta jeer uu dhacayo. Markuu dhaco isma dhaho waad guuldarraysatay, markaan mar dambe socod ha u noqonin oo ha samaynin. Laakiin markiiba intuu istaago ayuu isku dayaa, wuu dhacaa. Adigana nolosha waa sidaas oo kale. Laakiin haddii aad fadhiisato, waad guuldarraysatay, ee u shaqayso waxa aad jeceshahay. Xikmadda shanaad, wax walba oo naxariis ah aad samayso ama wax walba oo khayr ah aad ummadda la wadaagto waxay ku siinaysaa farxad. Haddii aad wanaag samayso waxaad ka helaysaa farxad. Haddaad wax wanaagsan ummadda usoo gudbiso waxaad ka helaysaa farxad. Mar walba ahow walaashayda muslimadda ahay iyo walaalkayga muslimka ahow inaad noqoto mar walba mid wanaagga ka shaqeeya, wanaagga soo gudbiya, mar walbana dhinaca wanaagsan wax ka eega, dhinaca wanaagsan wax u fasirta, sida aad markaas noloshaada oo dhan aad farxad ugu noolaan lahayd. Xikmadda lixaad, noloshu waa maanta ee biri ma ahan. Wax walba aad samaynaysid, wax walba aad rabtid inaad noloshaada kusoo kordhiso, saacadda aad haysid ka bilow, saacadda aad haysid qabo, saacadda aad haysid baro, laakiin ha u dibdhiganin birito. Xikmadda toddobaad ee aan kusoo gabagabaynayo, marna gadaal ha eegin, li'anna waxa tagay ha u ooyin. Kuma jiraan waxaas kaa tegay wax khayr ah, li'anna waa wuxuu Ilaahay ku dhaafiyey, wuxuu doona ha ahaadaane. Ma jiraan halkaas wax khayr ah oo kuu yaalo. Isku day inaad hortaada eegtid, isku day inaad horusocod noqotid, isku day inaad horusocod samaysatid, laakiin marna ha noqonin gadaal u socde. Ilaahay wax walba oo khayr ah ha ina wada waafajiyo. Waxaan mar walba idinka tegayaa guul iyo gobonnimo aan dhammaanayn. Inagu soo dhawaada walaalayaal, channelkeenana subscribe ka taabta, suulkana kor u taaga. Waxay noo tahay dhiirigelin. Waxaana ku dhiiranaynaa mar walba inaan bulshadeena wax anfacayaan usoo gudbino biidni rabbi alcaalamiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.